waxa aan jiray da'da 17 sano markii ay u dhacday sheekadani waxayna ahayd muddo laga joogo 4 sano ka hor maanta. fadlan kusoo dhawo kanaalkeena Qiso Production Official haddii ay tahay marka ugu horeysay subscribe saar channelka oo la soco si ay kusoo gaaraan muuqaalada aan duubno. aniga saaxiibkay waxa aanu aadnay iskuulka si goor hore aan u soo qaadano xiisadaha iyaga. sheekadani oo ahayd mid mar walba aan xasuusto isla marhaantaana saameyn ugu leh. aniga saaxiibkay dood ayaa naga dhex bilaabatay ku aadan iskuulka aaditaankiisa iyo sababta sida gaarka ah anaga lanoogu yeedhayo. aniga saaxiibkay banaanka ayaanu fadhiisanay, waxaanu cabcabaynaa, waanu nasanaynaa, laakiin waanu naxsanahay oo aad ayaan u cabsanaynaa. waxa aanu isweydiinaynaa maxaa la idigu yeedhayaa. guri aad u qurux badan runtii oo cidla ah ayaa weeye. roob ayaa soo daatay oo da'aya. roobkii cabaar ayuu hayay, anagu waxaanu ku jirnaa gudaha. weli ciddii noo yeedhatay may soo bixin. dabadeeto aniga saaxiibkay waanu joognaa. daaqada ayaanu ka soo daadanay aniga saaxiibkay hareeraha daaqada ayaanu toosh ku ifinaynaa marba. roobkii ayaanu iska dhex lugaynay, waanu soconay. in badan baanu soconaynaa, kadibna waxa aanu galay oo ka jirsanay qolkii. roob meel albaabka hore ama afaafka hore ayaanu ka galay si aanu nasano, roobka uga jirsano. toosh ayaa noo baxaya aniga saaxiibkay, roobkiina waa uu qaaday. waxa aanu rabnaa goobtii lanagu ballamiyay inaanu aadno. taleefon ayaa agtayada yaala. guriga aad ayuu u madow yahay, waa guri qurux badan. xaggan ayaanu ifinay mise cidba ma joogto. halkana waxay ahayd halkii lanaga wacay. waxaan aniga saaxiibkay aragnay muuqaal. waxaan isweydiinay oo saaxiib halkan miyayna ahayn meeshii lanaga wacay? haa maya saaxiib, caadi weeye, halkii lanaga wacay weeye, istaji. haa haye saaxiib, laakiin gurigu qurux badanaa oo haddana cidla badanaa. miis noo dhow waxaa saaran taleefon. aniga saaxiibkay aad ayaan ugu argagaxnay markii uu soo dhacay taleefonku, waanu naxnay. aniga saaxiibkay marka waxaan idhi keeneebaa qabanaya taleefonkan. saaxiibkay wuu qabtay taleefonkii. hallow, guriga aad joogtaan ma aha gurigii laydiigu talagalay. horor ayaa degan guriga. haddii aad naftiina jeceshihiin iskaga taga meesha. saaxiibkay wuu maqlay. taleefonkii ayaan tuurnay. naxdin ayaan la dhaqaaqi kari weynay. waa aanu yaacnay. aad ayaan u yaacnay aniga saaxiibkay. cabsi iyo naxdin ayaa naga dhammaatay. tooshkii ayaanu la baxnay. waxaanu ka baxnay gurigii lanagu martida qaaday. waanu cararnay. si saa'id ayaan weliba u orodnay. meel ayaan ku yara nasanay. dib ayaanu fiirinay anagoo aad u naxsan isla marhaantaana daalan. daaqada waxaa naga soo fiirinayaa horor. waa ninkii nagu ballamiyay goobtan, taleefonkana noo soo diray. tooshkii ayaa ii baxaya weli. aniga saaxiibkay annaga oo naxsan ayaanu tagnay. su'aalo ayaanu isweydiinay intaanu nasanay oo meel ayaanu fadhiisanay. su'aalahaas waxaa ka mid ahaa, aad ayuu saaxiibkay u naxsanaa, ilamuu hadli karaynin. indhaha ayaanu taagtaagnay. meel ayaanu cabaar fadhinay si aanu isu cabsida iyo naxdintu ay nooga ba'do. aniga saaxiibkay socodkayagii ayaanu iska wadanay si aan ugu laabano dhulkii aanu ka nimid. sheekadan oo ahayd mid naftayda lagu cabsi gelinayay, weli dib waxaa naga soo fiirinaya horarkii damcay inuu naftayada jaro oo aniga saaxiibkayba na galaafto. mahadsanidin.